السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والاليال كسر دواد موقال كان وعن ربينا كجهد الله بقضم ومهمة قضب كوادو حويان أرنت اللي رهضو برانك أما صومالي برانك oo aad ugu soo badatay iminka bulshada Soomaalida gaar ahaan dadka isticmaala social media inaan qeexo horta prank wuxuu yahay iyo sidoo kale in aan dadka u sheegno diinta islaamku maxay ka qabtaa in prank la sameeyo ama dadka laga naxiyo ugu horeyn aan ku bilaabo prank waa maxay prank waxa weeyaan walaalayaal waa kelmad af Ingiriisi waxaan loo adeegsadaa qofka bani aadamka marka laga naxiyo ee lagu qoslo ama marka lagu maadeysto oo qofkaas uu noqdo maskhara yani qof lagu cayaaray oo kaftan iyo cayaar iyo dacaayad lagu la kacay arrintaasina waxay weeyaan arrin qadiimi ah oo intii bani aadamku uu jirayba way jirtay inay dadku iska naxiyaan isku qosqoslaan maskhara la sukhriyad iyo jees marka la isku sameeyo wax jiri bay ahayd weligeedba iminkana way jirtaa laakiin iminka waxa u dheer social media ama baraha ay bulshadu ay ku kulanto aad ayay ugu soo badanaysaa khaasatan dadka Soomaalida ummadaha kale waa run weligeedba way ku badnayd waayo waa dad inta badan ma farxaan oo sacaadadii iyo happiness-kii baa ka maqan sadarteed wax comedy oo ka qosliyo way isaga baahan yihiin waa ummadaha kale aan islaamka ahayn laakiin anagu markaynu nahay dad islaam oo muslimiina sacaadadii iyo farxadda waynu naqaanaa meesha aynu ka helayniyo salaada iyo dhikriga Ilaahay laakiin se bariyahan dambe waxa soo badanaya dad laga nixinayo oo prank lagu sameynayo oo lagu qoslayo ayadoo ujeedadu ay tahay ama hadafku uu yahay in waxoogaa views ama daawasho fara badan laga helo baraha bulshada oo deetana marka qadaadiiciyada ama lacag yaro adduunyada ay qofka u soo dhacdo waxyaalaha cajaybka oo qaarna aan ugu arkay qaarna la iga warramay waxa kamid ah oo iminka Soomaalidu ay sameynayso hooyo wiilkeedii uu prank ku sameeyay waa hooyo Soomaaliyeed wiilkeedii baa ka nixinaya marka uu ka nixiyo oo war ka nixiyo uu sheego islaantiiba ay dhigido oo naxdo oo ay isku qabowdo oo maaragtay laga yaabo dhaawac xagga qalbiga ama jidhka ama stroke ama faalid baynu ku dhici karo subhanallah halista iyo riskiga inta laga ay ku dhacdo ayuu wuxuu dhahayaa wiilkii it's just a prank waxa weeyaan waa prank kaliya baan kugu sameeyay waan ka naxsanay waan kugu cayaari oo kula kaftamay waa hooyo Soomaaliyeed waxa loo sameeyay waxaan aragnay nin maaragtay xaaskiisa prank ku sameynay waxaan aragnay gabadh ninkeeda ku sameynaysa prank waxaan aragnay qoys caruurtoodii ay dhaleen prank ku sameynaya cajiib yalaya waxaan aragnay ilmo yar oo aan qaan gaadhin oo 18 daadiisu ay ka yar tahay oo baraha bulshada in lagaba soo daayaba ayagoo lagu cayaari ama lagu kaftamayo ama abuse lagu sameeyay ay xaraan ba tahay oo xeerarka iyo sharciyada u yaalaaba aanay mamnuuc ay ka tahay haddana lagu xaraabaysanay waxaan arkaynaa shawaaricda iyo wadooyinka waaweyn oo prank lagu sameeyay oo dad lagaga naxsanay oo marka uu qofku uu naxow gariiro isku anfariiro la dhahayo just a prank uu kugu cayaari yani waxyaalo cajaayib la yaab wallahi waxyaalo la yaab leh ayaa iminka bulshadeena dhexdeeda ka dhacay waxaala badanna anaaba arkay qaarna waa lay sheegay oo maaragtay dadka iga warramay oo dhahay xataa waxa weeye nin iyo gabadh isqaba oo maaragtay isfuulaya wal ciyaad bilaa wayna isqabaan ayaa haddana social media soo gelinay waxyaalaha noocaas soo gelinay subhanallah marka ikhwaani wa akhwaati arrinta noocaas hadda ka hormiyay dhici jirtay horta prank hadii waxyaalahan la iska nixinayo qofka lagaga maadaysana way dhici jirtay weligeedba way dhici jirtay xilligii nabigana way dhacday haddaba laba saxaabi ayaa jiray oo prank isku sameeyay nabigu muxuu ka yiri marka sallallahu alayhi wa alihi wasallam labada saxaabi waxa weeyaan nin saxaabiya oo dhalinyaro ah oo Zayd la dhihi jiray Zayd ibn Thabit wuxuu seexday godka loo yaqaano qaarul godka maaragtay khandaqa markii dagaalkii Ahzaab ama dagaalkii khandaqa loo yaqaan nabigu godka weyn oo qoday magaalada Madiina dhaxan badan baa dhacaysay marka godkii buu galay sida kutubta taariikhda ku taala
markuu godkii uu galay oo uu rimaad iyo kulayl maaragtay uu intaa uu ka raadinayo ayaa u seexday deetana mid baa ka mid a saxaabada baa seeftiisii qaatay hadda u fiirso waa prank seeftiisii buu qaatay nebigii baa u yimi wuxuu dhahay war hurdaayow meeday seeftaadii iyo hubkaagii deetana wuu kacay ninkiiyo waa argagaxay deetana kiibaa seeftii soo qaado wuxuu uhi waatan seeftiisii waan ku cayaariyey kaftamayey yacni prank is just a prank waa prank weeyaan wuu ku kaftamayey nebigu marka arrintaa wuu xaaraantimiyey waana u reebay xadiid kale oo abu daawuud uu soo saaray iyo keyrkiiba waxaa jiray nin saxaabada ka mid ah ayaa seexday deetana qolyo kaloo saxaabada nebiga ka mid a ayaa xadhigiisii ayay xadeen ama ay qaateen yacni may xadaynin oo tuuga may ahayn waxay rabeen inay ku kaftamaan ama branka ay ku sameeyaan saxaabigii markuu soo kacay oo xadhigiisii uu waayey fafazic wuu argagaxay marka haye argagaxaas intaa uu argagaxaya ayay markaa dadku ka raadinayaan maxay qosol iyo maadays iyo farxad iyo intaasaa laga raadinaya subxaan allah nebiga calayhi salaatu wasalaam markaa wuxuu dhahay branka isagoo ka waramaya dhegayso qof walba dhegta u raarici wuxuu dhahay rasuulku sala allahu calayhi waalihi wasaxbi wasalam laa yaxilu limuslimin an yurawica musliman ma bannaana in qof muslim ah uu ka naxsado oo uu prank ku sameeyo qof kale oo muslim ah xadiid kale nebigana wuxuu dhahay calayhi salaatu wasalaam oo ku yaala saxiixu muslimka wuxuu dhahay rasuulka ilaahi calayhi salaatu wasalaam man ashaara biakhiihi bixadiidatin qofka walaalkii mindi sidaa maaragtay ku ishaara oo ku fiiqa oo mindi ku qabta ama hub baastoolad bay noqon kartaa qofkii wuxuu iska dhigayaa qof qarxaya oo kale oo ka naxsanaya dadkii wuxuu iska dhigayaa hub intuu soo qaato iska dhigaya maaragtay qof dadkii dilaya deetana qofki wuu fariiraya wuu argagaxaya dhibaataa maaragtay qofkii uu dareemaya subxaan allah bal mararka qaarkood qaar bay wadnuhu istaagaa waanan ka warrami doonaa insha allahu tacaala sharciga diintanu waxay ka qabteen dabadeedna wuxuu dhahay nebigeenu qofka falka noocaasa sameeya ee farta ku fiiqa walaalkii isaga oo ka naxsanaya fa ina almalaa'ikata talcanuhu malaa'igta ilaahay baa lacnadaysa xataa yadacahu ilaa iyo hubka uu u qaatay uu ku cayaariyo uu joojiyo wain kaana akhaahu liabiihi wa ummihi xataa qofka uu ku cayaaray ee mindida uu ku qabtay ama tooreyda ku qabtay ama hubka ku qabtay ama baastoolada uu ku qabtay ama uu iska dhigay uu isku qarxinayo isagoo isku qarxinayo oo kale matalan uu ku matelayo wuxuu dhahay nebigeenu haba noqdo qofkaasi walaalkii ay dhashay hooyadii iyo aabihiibe yacni walaalka hooyada iyo aabbaha dhalay xataa haddaad ku qabato mindi ama toorey ama hub wax noocaas oo kale aad ku qabato adoo ka naxsanaya oo brank ku samaynaya fa ina almalaa'ikata talcanuhu malaa'igta ilaahay baa ku lacnadaysa nacuudu billah waana xadiis saxiixa oo ku yaala saxiixu muslimka inay arrintaasi xaaraan tahay sidaa darteed ayaa kutubta islaamka waxaa ku yaala qof muslima in laga argagaxgeliyo oo laga naxsado fa hiya min kabaa'iri dunuub kabaa'irta waaweyn iyo dembiyada waaweyn ee kabaa'irta ayay ka mid tahay waxay la mid tahay zinada iyo waxay la mid tahay ribada iyo xoolaha agoonta la cuno iyo burcadnimada iyo waxaasay la mid tahay yacni kabaa'ir ayay ku daraan culummada islaamku waayo lacnad baa timiba meesha malaa'igta ilaahay baa ku lacnadaysa subxaana allah la ilaha illa allah adiguna markaa waxa wey waad ku cayaaraysa xadiid kale nebigana wuxu dhahay calayhi salaatu wasalaam qofka muslimka ah ma u bannaana inuu maaragtay uu ka naxsado walaalkii walow kaana maasixan xataa hadday kaftan ay tahay xataa hadday tahay maxay kaftan lama ogola xataa kaftan in adoo ku cayaaraysa inaad ka naxsato lama ogola ka waran qofka aad ka naxsatay haddii dhaawac uu soo gaadho oo wadnuhuisu uu yahay wadno yaroo daciifa ama wadnuhu xanuunayo deetana markaad ka naxisay uu hiq yidhi oo maaragtay uu sidaa uu ku dhinto imise jeer bay dhacday wadamada kale muslimka aan ahayn dadka brank sameeya imise jeer bay ku dhacday karitha waxaa dhacday arrin maaragtay musiibo ah ayaa dhacday oo maxay ahayd musiibadaas mid baa wuxuu sameynayay brank deetana brankigiibaa dhabdhab buu noqdo xaqiiqa buu noqday oo qofkiiba uu dhintay haye diinta islaamku qofka haddaad ka naxsato waa qatlu camdin haddaad iminka halkaa inta nin gidaar dheer saaran ama dabaq ama fooq dheer intuu fuulay aad ka naxiso
oo fooqi ka dhaco dilaabaad tahay mujrim dilaa baa tahay dilaabaad tahay qatlu camdin weeyaan waa disha ninkii subxaan allah laa ilaaha ila allah marka waxa weeye ikhwaani wa akhwaati waxani wax bannaan maaha kuma bannaana sharciga diinteena islaamka kuma bannaana in qof muslima uu ka naxsado ama prank uu ku sameeyo qof kale oo muslima uu ku sameeyo cajaayibka iyo layaabka iminka dhacayana waad aragteen in xataa ay qoyskii isqabay ay gaadhay oo xataa carruurtii yaryaray ay gaadhay oo xataa waxa weeyaan hooyo iyo aabe ay gaadhay oo xataa walaaladii ay gaadhay xataa dadkii masaakiinta ahaa ee shawaaricda iyo wadooyinka iska maraya aan warba u haynin in lagu samaynayo prank lagu samaynayo oo shaqadoodii iska wato oo howlahoodii iska wata waa xataa waxay xaaraan ku tahay diinteena markay kaftanka ay tahay markay xataa iska dacaayada ay tahay markay iska cayaaraysid bay tahay ka waran markay dhabta tahayna haddaad argagax geliso qof muslima waa cajaayib de yacni subxaanaka yaa cadiim waxa maanta ka dhacay magaalada muqdisho qaraxii ka dhacay waa argagax ummado dhan buu laayay kaasi inkaar ilaahay buu qabaa malaa'igta ilaahay baad lacnadaysa annaasu ajmaciin ummadoo dhan baad lacnadaysa intuu laayay iska dhaafay intuu ka nixiyey imise qof baa ka naxaya nacuudu billaah yacni waxan waa wax lala yaab la weeyaan ikhwaani wa akhwaati marka magaalada muqdisho oo kale oo qaraxyada noocaas oo kale ay ka dhacayaan haddaad kaftan ahaan tidhaahdo waan ku kaftamayaa billaahi calaykum qofka maxaa ku dhacaya caafimaadkiisa maxaa ku dhacaya sidee bay kaftan u gashaa qarax sidee buu kaftan u galaa markaa dil sidee buu kaftan u garaa waan kugu cayaariyey laa yumkin wax suurtagelaya maaha wax caqliga insaanka geli karayana maaha marka ikhwaani wa akhwaati walaalayaal haddii social mediaha aad ku jirtid ama baraha bulshada aad ku jirtid si wanaagsan u adeegso annagu ma diidanin oo diinta islaamku inooma diidayso inaad social mediaha iyo baraha bulshada wax wanaagsan aad ku faafiso wax khayrla aad ku faafiso wax danta ummadda ka shaqeynaya aad ku faafiso wax maslaxadda ka shaqeynaya ku faafiso alxamdulillah wayba badan yihiin dadka maanta maaragtay social mediaha ku jira oo khayrka ka shaqeeya oo faniyo kala duwan dadka u soo bandhiga oo markaad daawato muuqaalkooda iyo dhahaysid waaw alxamdulillah maasha allah wallahi waxbaan ka faa'iiday way badan yihiin wallahi aad bay u badan yihiin laakiin waxa kaloo badan dad maaragtay waxa weeyaan adduunyo yar iyo google adsense lacagta yara xayeysiiska google uu bixiyo xalaal iyo xaaraam intaba ku raadsanaya oo been iyo khiyaano ku raadsanaya oo kanixid iyo prank ku raadsanaya oo views iyo dad badan inay helaan ku raadsanaya maxay inay ummado kale dhaawacaan ama dhibaato ay u geystaan marka ikhwaani wa akhwaati walaalayaal social media markaad adeegsanaysa si wanaagsan u adeegso cidi kuma diidana haddii aad wanaag u adeegsanaysa maxaa waa loo baahan yahay baahi weyn baaba loo qabaa maanta waayo dadka kale ee xumaanta u adeegsada ayaa ciidda iyo tirada ka badan marka wanaagga u adeegso khayrka u adeegso waxna anfacaya adduunya aakhiro u adeegso wax markay dadku ku dhageystaan ay dhahaan wallahi waan la cajabnay ama waxbuu nagu soo kordhiyay cusub ama wax faa'iido leh buu noo sheegay ama waxbuu naga baraarujiyey shay weeyaan arrin cajiib wey arrin wey loo baahan yahay weeyaan mujtamacii maslaxadii dadka ayaad wadaa laakiin iska ilaaliya ikhwaani wa akhwaati arrimaha noocaas waxa weeye talada u dambaysa waxay ku socotaa dadka la target garaynayo waxa weeyaan waa qofka daawadaha ah laano kaas ayaa ah maxay macdanta la raadinayo diamond waa isaga dahabku waa isaga subxaan allah luulka la raadinayo waa isaga ila isaga ayaa ah daawadaha koowaad waa isaga marka adiga ayay ku saameynaysaa waxani marka daawado aad tahay muuqaal kasta oo aad daawato bal taxliil ku samee analyze samee waxan baad war waxaad ka faa'iiday may tahay ha ama may haddaad ka faa'iiday dee like u saar haddaanad ka faa'iidinna dee dislike ka saar marka dislike ka saar faa'iido male haddaanay lahayn dee dislike ka saar waayo qofka social mediaha ku jira wuxuu ka necab yahay dislike ma jiro waayo haddii ujeedadiisu ay tahay inuu lacag raadsado iyo qadaadiic yar uu raadsado oo aad dislike u saarto ama waxaad tidhi ma ka helin oo ay badato mar dambe kuma dhiiran doono inuu muuqaal noocaas oo kale ah uu soo geliyo waayo wuxuu og yahay digniin inay dadkii daawanayeen u direen oo ah war waxaan hanoo soo gelinin waxa noocan ah hanoo soo gelinin subxaan allah marka ikhwaani wa akhwaati haddaad waxa noocaas oo kala daawato hooyo laga naxsanayo gabadh laga naxsanayo nin laga naxsanayo ina yaroo laga naxsanayo gabadh yaroo laga naxsanayo walaal muslimo meel iska maryan laga naxsanayo ma u qalma inaad sheer garayso ma u qalma inaad xataa subscribe u saarto ma u qalma inaad like-ta u saarto subxaan allah waxa weye inaad kasoo horjeesato tiraa wax wanaagsan maa wax khaldan weeyaan
bani aadam xuquuqdiisii baad beelka ka dhacday in sidaa la dhaha weeyaan. baaraka allahu lakum wajazaakum allahu khayran. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.